waxaa isu geli jiray baryaha faarax afcad iyo gabayaa kale oo isna caan ahaa oo ay isku waqti noolaayeen oo la ohan jiray aadan gurey maxamed cabdille gabayo badan ayaa dhex maray ha yeeshee midkan ayaan ka soo qaadanaya wuxuu yidhi afcad baa faanayo wuxuu ku faanay xoolo badan iyo arrimo sidaasoo la mid ah afcadna sidii la sheegay ama uu isagu dhowr jeer qastay gabayadiisa in xoolo badan laguma sheegin afcad wuxuu yidhi shayga qalaba gaashaan cad bay igaga sii daaya shirka haddii la tago khayligaa iila sharaf roone sharna haddii la galo waa midkii shucubka dheeraaye shan hadday dhashay madida geel soo shirrabantaaye haruub dheer wax laga soo shubaa sheexadii ariyee tangihii kol toban shaabahaa sheegtay orod dheere sacii shalay xaleed soo cabbaa shuurin caawana ee shan haruub kolkii laga lisuu shabaxsadaa wiile shax ma degay nin gabay lagu shuboo shaaciraan ahayee ma shiraaqday sida doonidoo cadan u siidaysa shaadir ma huwiye oo khayli sixir surayga ma u joojay sida weerar farasoo shax yidhi shucubka ma u laaqay bundada shiidan waxaan awsi raban shan isu soo saaray waxaan xeero shaaximan bahday saari kuu geliyey waxaan mara shariifaha madow sid isla soo taagay waxaan bahdarsana shuduq kuu idhi sharaf wanaagayga oo xamar shabeel u eg haddana soo shakamadeeyey baagshaashaleeyey waxaan 15 saanyey shanqar culus waxay labada guri shaax ku soo noqotay oo ubadku shaafiida waday labada shoocaaba shiikhaal riyaha laga dhaco sinuu irmaanaaday shanta qalaban mooye maxaa aadan soo shiriyey shirka sareer ogaas maalintan sheegay gabayayga goonyaha haddii laga sharqanin sheekada iyo maadda si maleeya yidhi gabay haddaan shinka ka higaadsay siiliyo shabeeliyo abgaal shubanka dhiinqaalle mateerteenka mudug shaabihiyo magaca shir sooroo dhan dad intii ishuuftiyo intii igu shunu raacday shantii meel maraysaaba ansagu iguma sheekaysan buuri oo halkaa sida shamsada kuma noqon shacabka daaroodana waa lagu daraa halkaa ayuu la maray marka ayaa waxa u jawaabay aadan gurey oo ay xoogaa isu gabi jireen oo mar walba ay tixfaalin jireen aadan gurey gabaydiisa ayuu ka taxraaxay oo gabayga afcad buu taxraaxay wuxuu yidhi baararsana waxaa shuruq ku tiray sharaf wanaagaaga oo xamar shabeel u eg haddana soo shakamaraysay xirsi maxamed waa kii shab yidhi sheeda loo dhigaye waa kay ciradu shaac ahayd sharabna taagnaaye shaydaan ha fuule maxaad sheebka ugu qaadin baashaashaleeyey wuxuu 15 saanyey shanqar culus waxay labada guri shaac ku soo noqotay oo ubadku shaafiida waday labada shoocaaba iyaboo ahaad shirka u toogsatay uu dhididku kaa shuuqay haddii soqorka shiladiis gasho oo shaqaftu yeelayso fishoo ka ah bilaawaha haddii looga shabaq siiyo shansho weyda waa lagu gubtaa malab shireeryaale odayse shawl ma daayee hadday laabtu kaa shidanto maxaa maydan soo shubi rabbaan lala shahaadayna reerkaasi goornuu shuf yidhi shayna maarwada tidbiis oo xirsi maxamed wuxuu ahaa afcad sodogiis oo wuxuu leeyahay bal faras la saaro ama haddii alla kuu roon yahay wuxuun lagu qaado maxaad uga soo heli weyday xoolaha badan oo aad sheeganayso mayranna waa mayran xirsi maxamed oo waa xaaskiisii wuxuu ahaa nin guud ahaan fardaha aada u kala yaqaan oo gabay isna caan ah oo layidhahda yuusan ii imanin ayuu ku kala sheegay fardaha jaadka ugu wanaagsan wuxuu yidhi nin ugaarsadaa xamarka jecel oro dambeedkiisa usha iyo dhawaaquu sugaa yuusan ii imanin askil orodki waa maalintuu oofa weyn yahay ololaha nin jecel baan ahee yuusan ii imanin bulaale af adaygan ku nacay araha soo rido oo niman urursan buu kuu gashaa yuusan ii imanin ma isdhaysna oo caynab waa faras ogaadeene odaybaa ubbada loo suraa yuusan ii imanin hadduu oomo boosaga naftay kala agoogaani aroorkii maqnaa kuma simee yuusan ii imanin qaajaga indhaha diiran lihi waa inkaar qaba oo diyo qodxaaku kama gudee yuusan ii imanin adingaab arooryada horuu igifleeyaaye
uuriyacay abaar kama baxee yuusan ii imanin afar midable uurkiiyo fankiiyo araxdu weynaatay isha waxaan la raacaa fardaha ka u itaal roone oog subaxda moodiyow baroor ubaxa baan doon waa tahay halkaa wuxuu inagu tusay fardaha jaadka baroorka ah midabkaas lihi in ay ugu wanaagsan yihiin dhinac kasta markii la eego markii uu duray midabada kale fardaha leh waa tahay أنا أنيو أدي قادة إسان